bismillaahi raxmaan raxiim kulan haboon daawadalid lahantiinba kusoo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo weliba Soomaaliya qaybtan waxaan ku eegi doonaa muuqaal footage loo yaqaano oo la baahiyay oo muujinaya gantaalada nooca cluster national loo yaqaano Iran cirka u dirtay kadib xilli Israa'iil dhammaan gantaaladaasi ay ka hortagtay. Haddaba maxay tahay xaaladda bariga dhexe saameynta culus mar kale ay yeelatay Iran caawa in ka badan 650 gantaal ay cirka u dirtay. Dhinaca kale Israa'iil waxa ay dishay in ka badan 100 qof oo Lubnaan ah iyadoo markaasi dadka inta badan Beirut ee lagu amray inay ka baxaan deegaanada ay ku nool yihiin. qaybtan ay raba saaxiib halkeeda kugula wadaago soo dhawaada saaxiibayaal oo codsi waaye muuqaalkan like noo saara runtii aad ayaa maalmahan hoos ugu dhacnay waxaan idinka codsanaynaa inaad qof kastoo muuqaalkan soo gaaro noo like gareeyo sidoo kale subscribe-tana soo saara channelka mahadsan idin soo dhawaada mar kale. Muuqaal footage ah ayaa la baahiyay oo welibana muujinayo gantaalada nooca cluster nation ah oo cirka markaasi gubanaya West Alert intii markaasi lagu guda jiray weerarada cusub oo ay Iran ay ku qaaday Israa'iil. Gantaaladan cluster nations ah waa hubka markaasi kala firdhooba marka uu qarxayo sida ay markaasi dayaxa bambooyinka yaryar badan kuwa oo markaasi ku daata meelo markaasi ballaaran. Tani waxay markaasi kordhin karaydaa khatarta dadka iyo weliba dhimashada ee markaasi ku yaala aagaga la beegsanayo. Tan iyo xilligii dagaalka Iran ee uu qarxay waxaa muuqata in gebi ahaanba dabcan ay cirka isku sii shariirayso weeraradooda ka dhanka ah iyo weliba hubka culus ee gantaalada. Iran caawa waa gantaaladii ugu adkeyd ay hawad u dirtay welibana waxaa muuqata in burbur aad u xoogan ay ku riday caawa Israa'iil waxaa ilaa hadda la warinayaa dhammaan aagagii ku dhaceen hubka nooca kala duwan ee Iran ay tuurtay ilaa hadda weli war sax lagama keenin laakiin warbaahinada ayaa daabacaya oo kuna tilmaamaya in markan isbedel weyn oo xoogan ka jira halkaasi. Dhinaca kale Israa'iil waxa ay iyana markaasi dishay in ka badan 100 qof oo Lubnaan ah iyadoo markaasi dadka Beirut lagu amray in ay ka baxaan. Warbaahinada Al Jazeera ayaa markaasi sheegay in duqeymaha ay fulisay Israa'iil ay ku dhinteen in ka badan 100 qof gudaha Lubnaan kadib markii Israa'iil ay markaasi digniino culus ay u dirtay dadka ku nool aagaga caasimadda Beirut iyo weliba sidoo kale meelo badan oo koonfurta dalka iyadoo markaasi uu ku amray in ay degdeg uga baxaan. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaan markaasi Khamiistii sheegtay in tirada dadii ee dhimashadu dagaalka markaas u dhaxeeya Zahelbod iyo weliba Israa'iil ay gaartay 102 qof halka 300 iyo weliba waa 638 qof in ay ku dhaawacmeen tan iyo weliba maalintii Isniintii. duqeymahan cusub oo markaasi ayaana aroortii Khamiistii ka dhacay xaafadaha koonfurta Beirut oo ah meel markaasi ay ku xoogan yihiin Hezbollah. muuqaalo oo weli markaasi ay muujinayaan Aver TV ayaan markaasi muujisay in qiiq weyn oo ka kacay goobaha la duqeeyay sidoo kalena burburka iyadoona wakaaladaha wararka Lubnaan National News Agency ay markaasi sheegtay in diyaarado drones ah Israa'iil ay leedahay ay weerartay guri ku yaala xerada qaxootiga ee Falastiiniinta. Belwet oo u dhow markaasi magaalada Tripoli ayaa weerarkaasi waxa uu ku dhintay sarkaal sare oo ka tirsan Hamas oo markaasi lagu magacaabo Wasma Altas Altho oo Ali say xaaskiisa. sidoo kale Israa'iil ayaa markale markaasi balaarisay amarada qarxinta iyo weliba dadka nolosha markaasi nool boqolaalka kiiloomitir ee koonfurta Lubnaan iyadoo markaasi ay sheegtay in howlgallo military ay degdeg ah markaasi halkan ay ka bilaabanayaan. xiisadda sii kordhaysa ee sababtay dhimashada bini'aadanimo in ka badan 83,000 oo qof ayaana markan ku dhaawacantay gudaha Lubnaan. sidoo kalena waxa ay muujinaysaa Syria iyo weliba hay'adaha qaxootiga ee UNHCR inay sheegeen markaasi ugu yaraan 38 qof oo badnaan waa markaasi badankoodana ay yihiin Suuriyan oo ay markaasi ka qaxeen Lubnaan una markaasi gudbeen Suuriya. afhayeenka militariga Israa'iil Alves Adres oo markaasi bartiisa ka soo qoray digniinta ayaana sheegay in ay socon doonto ilaa weliba koonfurta dalkaasi Lubnaan duqeymaha cirka ah ee la qorsheynayo tan iyo weliba xilligii bilowgeedii.